Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cali Caadle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigayay buug loogu magac daray Hiil iyo Hagarbax kaasoo lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaana sidoo kale ka qayb galay Gudoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Aqalka Sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo marti sharaf kale. Qoraaga buuggan ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixisay ujeedka ka dambeeyay in buuggan maanta ay soo bandhigto. buuggan wuxuu xambaarayaa taariikh laba dal oo ah dad iyo dowlado walaalo ah, laakiin dad Soomaaliyeed runtii maxaan ku yiraahdaa ay ku kala nool yihiin. marka ugu horeysa waxaa araarta guud ee buuggan ku xusan doorkii dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku lahayd in Djibouti dal ay noqoto. Runtii aan ognahay markii ugu horeysay aan qaadano xorriyadda in dastuurkii ugu horeeyay ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed la dhigay qayb ka ahayd baadigoobka gobolada markaa shanta Soomaaliyeed iyagu kala seesteen gumeystayaashii duulaanka ku soo qaaday guud ahaan geeyiga qaaraddan Afrika. Djibouti markii laga hadlayo iyo Soomaaliya taariikhdeeda way isku siiskan tahay oo dhinacna runtii markii loo eego halganka waxaa inta badan qalimaantu wada xusaan dadka waxa qoran ay sheegaan in halgan wadaag ay ahaayeen, taasoo tusaalooyinka ugu waaweyn ee maxaan ku yiraahdaa tusmeynaya inay ka mid tahay halgamayaashii Soomaaliyeed inay ahaayeen kuwo mar walba ay talooyin iyo tusaale mid ah ka qaadan jiray guud ahaanba gobonimo doonka gobolada kala duwan ee Soomaaliyeed oo shan ahaa. intaad dhammaantiina waa taariikhda iyo maxaan ku yiraahdaa aqoonta gudbada ku heesaan. Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa isna ka hadlay munaasabadani. buugga mar dhow soo gaaray laakiin ishaan mariyay si general ah 5 cutub uu ka kooban yahay. cutubka koowaad waa guud ahaan sooyaalkii iyo taariikhdii Soomaalidii hore Soomaaliya markii Soomaalidu aysan dowladda lahayn mujtamac geeska Afrika ku nool yahay. Gudoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Aqalka Sare ayaa gabagabadii munaasabadan soo xiray. waxaan halkan anigoo ku hadlaya magaciina aan rabaa inaad igu sharaftaan inaan u mahadceliyo, ammaano, bogaadiyo walaasheen gabadha buuggan qortay ee ah dhiganahan maanta halkan yaala. runtii waa guul aad iyo aad u weyn. buuggan ay gabadha walaasheena samaysay wuxuu dirayaa fariimo aad u fara badan oo haddii lasoo koobo aan ku tilmaami karo. marka koowaad waa fariin ah dalkan wuxuu leeyahay rajo aad u ballaaran maadaama da'yartiisii ay u istaageen kaalintoodii iyo dhaqankii iyo waajibkii ahaa qalin iyo qoraalka. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, Hirshabelle TV, Jowhar.